doorashada guud ee dalka Kenya ee shalay dhacday ee haatan socoto cod tirinta ayaad insha Allah muuqaalkan kaga bogan doontiin wararkii ugu dambeeyay ayaad la socon doontaan natiijada ee halka ay marayso hadda Kenya ayaa kuraas badan oo loo tartamay ayaa kursiga u sareeya ee wadanka Kenya ee doorashadan ku socdo ayaa hadda u tartamaya ra'iisul wasaaraha hadda xilka hayo William Ruto iyo ra'iisul wasaarihii hore ee wadanka Kenya Raila Odinga ayaa labadaas ayaa u cadcad oo u laalamay intastoo hadda uu hogaaminayo William Ruto ayaa cod tirinta hadda hogaaminayo intastoo wili ay koobi kala bar ay joogin cod tirinta ayaa maanta lagu dhawaaqi doona markay soo gabagabowdo galabta xilliga galabta ay soo gabagabowdo tamatas ayaa lagu dhawaaqi doona intastoo shalayto meelo qaar ayaa hadda ku yimaaday cilado farsamo iyo qabada iyo roobooyin ayaa sababay inay dib u dhacdo ayaa maanta laga soo dhameeyay dadka qaar codkooda dhiibanayaan ayaa aykan maanta la soo gabagabeyn doona cod tirintooda dhammaan guud ahaan wadanka Kenya inkastoo qalalaasi yar iyo buuq yar ay jiray haddana sidii hore ma ahan ayaa hadda si fiican ay cod tirinta loo wadaa natiijadana ma hor dhici karno inkastoo kuraas qaar ay caadi u tartamayaan xilalaha kala duwan sida governor iyo MCA-da kuwa qaar ay hadda natiijadooda meel fiican ay marayso kuwa qaarna mar hore xilli hore laga tagay ayaa hadda insha Allah muuqaalada ama xiga ayaa ka bogan doontiin wararkooda dhameystiran inkastoo hadda cabsi yar ay jirto haddii marka lagu dhawaaqi doono doorashada ay natiijada ay imaan doonto buuq yar iyo xamaasad yar inkastoo dawladda Kenya ay ciidamo badan oo xoogan ay meelaha goobaha tirinta ka socoto iyo sidoo kale goobaha oo dhiman hadda la dhameystirayo ee ciidamo xoogan ay joogan ay ilaalinayaan codka si nadiif ah loo ilaalinayo ayaa insha Allah muuqaalada kaga bogan doontiin fadlan ku xirnaa markasta qaxootiga dhab TV war saxan iyo war raad raaca